الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa walaalahayga ku xiran channelkeenan Lovely. maanta waxaan idin hayaa nafaqadaas waxaan ka sameeyay waad ujeedaan halkaan waxaan ku haystaa hilib shiidan. hilibkaas shiidan waxa weeyaan hilib ari. anigu waxaan isticmaalaa oo jecelahay oo aad u macaan hilib ariga shiidan. waa in nus kiilo ah baan ka kuritay oo hilib ari shiidan ah maasha Allah. alaabtan hilib ariga waa qof kasta oo garanaya uu ka macaan yahay lo'da iyo geelaba. okay waxaan diyaarsanayaa spiceski aan ku dari lahaa hilibkan. halkaa waxaan ku haystaa waxa weeyaan xawaash shiidan, xawaashka duuban ee shiidan, coriander maha coriander waa cherry. okay toon baan halkaa ku haysta, toonta xoogaa ku badso, toontii shiidnayd 2 qaadaan ku darsaday iyo maajiga powderka wax kale kuma darayo. saddexdaas spices baan ku daray. haddii aanad maaji haysan cusbo bedelkeeda geli yaa liin dhanaan yarna ku tuuji liin markaa maaji baa xoog boogid. intaas ka bacdi waxaan ku darayaa dhageyso filfil wax yar oo filfilan ku daray. hadda waa taas waan isdhex geliyay. kamsara iyo taalo kamsara yar baan soo jarjaranayaa midida ku soo jarjarayaa. waa taas kamsaradiina waan ku daray. intaasaan si fiican isku dhex gelinayaa. si fiican baan intaa isku dhex gelinayaa. ukun baan soo karkarsaday 3 xabo ukuna baa meel halkaan igu karkaraysa. halkaana basashii baan ku diyaarsaday. 1 xabo basal aan soo kala goostay, xabad basbaas cagaarna waan ku darsaday. yaa mashiinka haddaad haysan dhibaato malo gacanta ku jarjar si yar oo sida sambuuska kale u jarjar. anigu mashiinkaan ku jarjarayaa waan ku yaryareynayaa. waa diyaar hadda waan ku dhex darayaa waan isku walaaqayaa waan isdhexgelinayaa. aniga gacanta waan jecelahay inaan isticmaalo. dadka gloveska iyo waxaas ma jeceli baca plastigaas iyo waxaas raashinka inay ku taataato. marka gacantaada soo dhaqo maasha Allah la gal biyo sacbadaada looga dhirgaa. waad maqasheen maamaahdaas. okay 3 xabo ukuna waan soo fiiqay. waa taas hal khalad baan idin sheegay oo nafaqada dadka intooda badan u sameeyaan. fiiri hadda saan u sameynayo hilibkii aan kala ballaarinayaa ukuntii baan dhex dhigayaa. sidaas waa khalad. hadhowto marka aad shiilaysid ukunta iyo hilibku isma qabsanayaan. okay ukunta iyo hilibku ku saas hadda wuu kugu samaysmayaa wada jeedaa, laakiin hadhowto ukuntii hilibku yaa isma qabsanayaan. hadda eeg waa kaas. laakiin saasna sida saxda aynu tusayaa. waxaad soo qaadanaysaa horta xoogaa bur ah. burka ma qoynaysid, bur caadi ah meel kusoo shubanaysaa. ukuntii baad saa u marmarinaysaa. yaa ukunta markaad saa u marisid ukuntu waa xabag. hilibku wuu qoyan yahay waad ogtahay, wax kale kuma darin. hilibku xoogaa qoyan buu leeyahay. marka ukunta xoogaa burkaale markaad dhex gelisid si fiican bay dhab iska oranayaan sidii koolo oo kale. marka weligiin saa u samaystaa nafaqada marka aad sameynaysaan. aniga waxaan rabaa inaan hal xabo dhex geliyo. haddaad doontaan inta ukunta 2 kala dhigtaan ood kala goysaan dhexda ka kala goysaan baad gelin kartaan. aniga laakiin sidan qurux badan design-kan yaa waxaan ku leeyahay wax weyn oo qurux badan oo waxaan ku leeyahay saxanka qabanaysa ah. wata hilibkii gacanta ku kala bixiyay ukuntii aan burka mariyay baan saa ugu qabanayaa. si fiican bay u qabsanaysaa. hadhow markaan shiilayana waxba kama okay bay noqonaysaa. xabadii ugu horeysa waan sameeyay 3 xabo bas baan rabaa inaan samaysto. yaa isku sidaas baan u wada sameynayaa 3daba. hadduu hilib ii soo noqdo hilibka igama xumaanayo. kabaab baan ka dhigan karaa, meatball baan ka dhigan karaa, katalas baan ka dhigan karaa. intaan baradho ku darsado waa kaa la iska arag. yaa
yaanyo basal baan ku dari karaa, baasta suugo baasta iyo noqonaysaa, wax kasta way noqonaysaa. xabadii labaadna wataa, ta saddexaadna saasoo kale aan u sameynayaa. waxaa meel halkan ay igu karkaraysa baradho, 2 xabo oo baradho ah. baradhada sidaan u sameeyey insha allah idina la socda. waa taas gacantaad saa ugu ballaarinaysaa, aad u jeedaan saasaad ugu laabaysaa. ka bacdina isagaa isku imanaya. ukunta meel yar yaanay ka banaanaanin, meel yar yaanay ka banaanaan. hilibka waa inaad ku wada qarisid ukunta. xabadii u dambeysay waayo intaas waxa weeyaan waa intii iga hadhay. waa aniga idin sheegay berger baad ka dhigan kartaan, gacanta intaasaa ku tiraadaan baad dhac dubaysaan, ama waxaan ku leeyahay kabaab baad ka dhigan kartaa intaad qorigelisid, ama waxaan ku leeyahay meatball baad ka dhigan kartaa intaad baasuuga dalac bilaasho u samaysid, ama yaanyo basal baabad ku dhex darsanaysaaba. waxay noqonaysaa suugo duqad ah, yaa suugo hilib shiidan leh. marka sida aad jeceshahay baad u samaysan kartaa. mataa meatballkaasaad ka dhigan kartaa haddaad doontid, si walba way noqonaysaa. aniga laakiin berger baan ka samaysanayaa, 3 xabo bergera ya. meatball iyo waxaas ma rabo. meatballku wuxuu kaaga baahan yahay suugo, saacadan suugo ma karin karo. marka berger oo rootid la dhex gashadaan ka dhiganayaa bes. xitaa ukun kumaan darin, hilibka waa sidiisii, basal bas baan ku daray. aniga bergerka waa kaasaasaad gacanta ugu dhahaysaa. birtii bergerka haddaad haysidna intaad dhexgelisid isagaaba kala bixinayaba, laakiin habays dhirinba gacantaada saa ka dhex. basashii waan soo jajabsaday, waa halkaa ii taalo. waxaan ku darsanayaa cheese baan ku darayaa. cheeseka waa cheeseka mozzarella ee waxaan ku leeyahay pizza waxaa lagu daro. cheese waxaad haysatid waad ku darsan kartaan, aniga kaasaan isticmaalaa. cheese ayuu nooca waad ku darsan kartaa. okay, waxaan ku darayaa 1 xabo ukuna iyo wax yaroo spices ah. waxaan ku darsanayaa toon si ay udgoon iyo macaan iigu ahaato. maraq digaag baan ku darayaa. maraq digaaga haddii la haysanin cusbo, toonta shiidan haddaan la haysan, toon caadiya tumo yaa oo ku dhex darso. toonta caadigaaba ka fiican ba marka la tumo. toonta badada toonta caadiga ka udgoon oo ka macaan. waad fahanteen. waxaan ku darayaa samaliina waxa weeyaan, samaliinada waxa weeyaan galey shiidan. galeyda shiidan baad ku darsanaysaa, ama aniga galey shiidan baan ku darsaday oo bur ma rabo, laakiin ilmaha markaad nafaqeynaysid bur ku dar. 2 qaado oo bura baad ku darsanaysaa, ama waraangaad ku darsan kartaa. 2 qaado oo waraanga ah. waad fahanteen. saasaan soo qasay. markaa waa isku wada midkii. aniga xoogaa faadkaas ka yareynaya. marka waxaan isticmaalayaa soortaan isticmaalay. hadda waan soo dhex geliyay, waa diyaar. baradhadan hilibkii baan dusha kaga sii kooleynayaa. ukuntii hoosta igu jirta, hilibkii baa lambar 2 iyo lambar 3 baradhadan ka dhigayaa. markaas markaad baradhada kule ku samaysid, haddaad saliid waad ku shiili kartaa. saliid waa inay ku ahaataa khafiif, saliid aada kulul. markiiba waxaan kule dabka hilib weeyaan, waxaan baradhada kaa gudaysa, hilibkina cayran buu noqonayaa. dabka waa inuu yaraado, dab yaroo khafiif ah waxaan ku leeyahay hilibka kugu bislaan karo. ovenkaad gelin kartaa, uma baahid saliid waxaas.
ofanka ayaad gelinaysaa dhabka wuxuu soo baxayaa ofanka markaad gelinaysid saliid baad ku buraashaysaa buraashka waad qaadanaysaa saliid baad ku buraashaysaa yaa haddii kale saliidaadaad ku shiilanaysaa sida saambuusaha ama air fryer aniga air fryer baan ku sameynayaa ofankii air fryerka waa isku mid yaa air fryerkaaba ka fiicanba waa ku waxa weeyaan ofanka roone yaa ofanka roonaha gacantana waad ku samayn kartaa laakiin aniga bac baan idinku tusayaa bax baad soo qaadaysaa weel godan baad ku ridaysaa waad ballaarinaysaa saasaad u ballaarinaysaa hilibkaad ku dhex ridaysaa bacda 4 qaybood saasaad isugu soo celinaysaa marka iyada gacantana xoogaa saasaad u riixaysaa si fiican bay u qaadanaysaa hadda gacantaada laftirkeeda waad ka farka saddexaad waad gelin haddaad inta ilaalisid hilibka iyo ukunta inaanay kala xararin yaa saasaan ku wada sameynayaa kabacdi 5 daqiiqo 10 daqiiqan talaagada gelinayaa kabacdi waan kasoo bixinayaa ama ofankaad ku sameynaysaa ama air fryer laakiin xoogaa suu isku qabsado talaagada ilaa 5-10 daqiiqo waa inaad gelisid idinka arkaya sida quruxda badan lagu iskugu dhagay wataas markaad ka bixisid haddii xoogaa hilibku meela ka muuqdo kusoo riix wataa waa inaanu hilibku muuqanin marka aad shiilaysid saas markuu yahay rootigii shiilnaa baad dhexgelinaysaa waad ku kafargaranaysaa waayo rootiga shiidan crispy buu ka dhigaa marka saliidda lagu shiilayo ofanka haddii lagu shiilayo laftirkiisa rootiga waad dhex gashan kartaan yaa laakiin sidana ka qurux badan ma fiicna ofanka iyo microwave ofanka iyo air fryerka markaad ku sameynaysaan inaad bariid bahalkaas rootiga shiidan dhexgelisaan waad dhexgelin kartaa dhib male xabadan fiiri gacanteydaan idinku tusayaa yaa biyo gacmahaaga saacbadaada looga dhirgaa waa kana gacanteydaan ku sameynayaa bac iyo waxaas iskaba ilooga laakiin bacda waad u baahan taho waa inuu sheeb qurux badan bay bacdu yeeshaa sidii in waxaan ku leeyahay qorila waxa lagu kala bixiyay camal wataa xabadan gacanteyda ku sameeyey waa inaad ilaalisid inay kala ordin ukunta iyo hilibka markaas waa diyaartaasina saasaan ku wada dhamaystirayaa bacbaan ku xirayaa 3 xababa markaan bacda ku xiro talaagadaan gelinayaa oo 5 daqiiqo 10 daqiiqo rabaa talaagada xoogaa inay isqabsadaan waad fahanteen kabacdina saliid yar baan burshka u marinayaa kabacdina waan dubayaa waataa talaagadii waan kasoo bixiyay 10 daqiiqay ku jireen saasay yihiin waad ujeedaa baraf maraba inuu iga noqdo hadda bacdan ka wada furayaa 3daba yaa ku karkaroona muxuuha oven karoonahaygii yaa air fryerkii baan dhacdhac ku siinayaa aan ku dhex ridayaa 180 baan geynayaa xaraaradda 5 daqiiqo hore 180 ka dhigayaa iyo 25 daqiiqo 5 daqiiqo ka bacdi waan ku soo noqonayaa waxaan geynayaa 140 si hilibku hoosta ku jirta inuu bislaado tartiibtiisa 140 baan ka dhigayaa ofanka markaad ku sameysaan xitaa waa inaad 140 ka dhigtaan
rootigii maan marinin waad ujeedaan. Hadda waxaan sameynaya 3 xabo baan ku dhex riday. Saliid yar baan waxaan ku leeyahay xoogaa ku yara burdigayaa. haddii kale saliid uma baahnid saas aad ku dhigaysaa aad ku gelinaysaa. aniga laakiin xoogaa saliid inay iga soo yaro shiirtaan rabaa. hada gacantayda intaan saa ugu shubo. buraashkiina waad ku samayn kartaa, laakiin buraashka waxaan siduu kaa xoqayaa gacantayda oon ku ilaalinayo baan ka marmarinayaa. saasaan ku gelinayaa. markuu ku jiro 15 daqiiqo waan soo bixinayaa. haddana saliid yar baan ku buraashayaa. hataa 15 daqiiqo ku jiray saasuu yahay, wuu adkaaday. yaa saliid yar baan ku buraashayaa. hadda korka ka yara marinayaa. xag kale wuu u rogmaya, laakiin ma raba aniga inaan rogo. saas waan rabaa inuu igu bislaado. hadda waxaan ku leeyahay wuudi waa diyaar. 15 daqiiqo way dhamaatay. saasuu soo baxay. alaabtaas aad ujeedaa uu saasuu ku soo baxay. maasha allah, quruxda golden brown waad ujeedaan. wax saliidi kamay bixin. hadda xabad baan soo qabanayaa. dhexdaan idinka aan ka dhex ka jarayaa. ukuntii, hilibkii iyo bardhadii say isku soo baxday ila arka. xoogaa yara qabowdo. xoogaa inaad yaradaysa waa in ay qaboobaysa, haddii kale kaa kala daadanaysaa. xoogaa yar sug ilaa intuu ka yara qaboobaya, markaasaad kala goynaysaa. haddii kale isagoo kulul haddaad istiraado kala jar wuu kaa jajabayaa. saa ula socdaa. waa taa xabadaasaan dhexda ka jarayaa. waa kulayl oo idinkaa ujeeda. ukuntii iyo hilibkiisa isku haystaan. bardhadii oo ka sareysa. maasha allah, macaankii udgoonka waad yaabaysaa. waa taa alaabtan casuumadaha haddaad raacisid kaala arag. yaa xaajiga haddaad u samaysidna kuwa ilaaway weligiis. ilmuhuna warkoodaba daaba. waa nafaqo yaro cajiiba oo crispis oo kaala araga. yaa waad ujeedaan. khudradaada dhinac ka saaro, bariiskaaga dhinac ka saaro, baasadaada dhinac ka saaro. si allaale sidaad jeceshahay baad samayn kartaa. saliid baad ku shiili kartaa. microwave-kaad waxaad ku samayn kartaa ovenka. aad baad ugu mahadsantihiin daawashada videoga. walaalahayga sharafta badan leh, waxay ila tahay inaad ka hesheen. oo walaashin laafle oo mar kale idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. insha allah khayr baan idinka tegay iyo idinkoo ka faa'iidaystay alaabtan khatarta ee nafaqada ee isku dhuuqa ee maasha allah. aad baad u mahadsantihiin mar kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.